بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waxaan idin tusayaa sida aad ku heli karto shahaado free ah iyo koorso free ah haddaba si aan idin tuso aan aadno browserka naga browserka markuu noo soo furmo waxaan ku qori doonaa website caalami ah oo magaciisa la yiraahdo answers-q websitekaas markii aan gudaha u galnay ayaan arki doonaa dhammaan websiteyo kale oo websitekaas ku dhex jiro oo bixiyo shahaado iyo certificate free ah haddii aan ku dhufano website magaciisa waxaa la dhahaa answersq.com linkiga aan u horeeya waaye asaga ayaad ku dhufsanaysaa halkan markuu ku keeno waxaad dooranaysaa meeshan waxaa ku qoran home iyo free courses all subjects special waxaasaa ku qoran marka waxaa ku dhufsanaysaa adiga midaan ay ku qoran tahay free courses markuu saan usoo baxo hoos ayaa usoo soconaysaa waxaa imaanaysaa websiteyadii aad ka heleysay koorsada freega iyo shahaadadeeda aniga hadda ka hor grid learningkan waan dhigtay shahaadaan ka qaatay midkaan sidoo kale midkaan waa midkii maalintii 15 bisha ay ahayd aan iska diiwaangeliyey 16 waxaan ka qaatay shahaado free ah bal aan isaga aan ku dhufto si aan kuu tuso shahaadadii iyo koorsadii freega aan ka qaatay websitekaas websiteka waxaa loo soo gaabiyaa CFI free courses with certificates marka hoos aan u soconaynaa waxaan tegayaa koorsadii aan iska diiwaangeliyey ama iska register gareeyey ayaan tegaynaa waa mid aan u horeyso introduction to wealth management waxaa kusii dhufsanaysaa enroll for free halkaa markuu ku keeno Facebook Google-ka ayuu ugu xiran yahay isaga ayaan ku dhufsanayaa qofkii aan register gareysaneyn halkan ayuu iska register gareynayaa aniga marka waa register gareysanahay maadaama aan maalin horeba ka qaatay shahaado wuxuu toos ii geyn doonaa halkii aan ka helayay ama halkii aan ka galay koorsadeydii hore sidaan ayuu usoo bandhigayaa wuxuu i tusayaa koorsadii iyo shahaadadii iyo wixii aan qaato o dhan halkan ayaad ka arkaysaa intaan waxayeysiin yar waxaa lagu leeyahay halkan dhabahan waa dhabihii aad ku kasbanaysay shahaado free ah iska xayeysiin waa ka gudbaynaa marka si aragtaba waxaa lagu tahniyadeynayaa inaan examkii ku baasay oo aan keenay dhibco 80 ah markaasna aan abaalmarin ama aan helay shahaado waxaan dhan aad aragto koorsadan waxay ka koobneed 5 jabtar bay ka koobneed 5 jabtarba waan wada dhameeyey jabtar walbana ilaa 10 cashir camal uu ka koobnaa marka si aan shahaadadii kuu tuso haddaan casharada hal mar ku tuso introduction-ka oo kaleeto oo kaa 2 cashir buu ka kooban yahay mid introduction oo video ah iyo mid file ama PDF casharadii ah marka midka introduction-ka ayaan idin daarayaa wax yar Welcome to our Introduction to Wealth Management course. I'm your instructor, Tim Vipond, and this course was co-authored by Mary Jane M.J. Lee. I myself worked in wealth management for several years at Scotiabank, where I focused on building a book of high net worth clients and managing their assets. MJ worked at Credit Suisse and UBS in Hong Kong, where she rose up through the ranks as a private banker, serving ultra high net worth clients.
In this course, we've got several learning objectives. The first is to describe the various services that make up wealth management. Then we're going to look at career paths within that industry. We're going to help you understand how wealth management is segmented by client type. We'll explain the skills that are needed for success in wealth management. We'll build Let's explore the careers in wealth management pyramid. We're going to take a look at all the different types of roles you would see as a professional in wealth management. We can, broadly speaking, break wealth down into two categories: advice and relationships on one side, or discretionary investment management. cashir walba markaad dhamayso tig ayaa fuuleysa wuxuu caddaynaya inaa cashirkaas qaadatay saas markaa ku wada dhamaysana ugu dambeyntii waxaad imaanaysaa halkan qualified assessment exam. ugu dambeyn examkan ayaad gelaysaa haddii aad 80 keentana waxaad abaalmarin helaysaa in shahaado lagu guddoonsiiyo. marka waxaan ku tusayaa halkii aad kasoo degsan lahayd shahaadooyinka. halkan go to dashboardka ayaad tegaysaa, kadib dashboardka ayaad sii fureysaa. halkan ayaad imaanaysaa my transcripts and certificates. halkan waxaad soo download kartaa dhammaan transcripts-yada shahaadooyinka. aniga hadda waa soo download gareystay, haddaan hadda idin tuso. koorsadii aan qaatay haddaan shahaadadeeda idin tusana, wataa shahaadadeydii. adigana saan oo kale kugu soo baxaysaa haddii aad dhamayso. kadib markii aad saan kugu soo view gareysmato waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay pdf. halkan ayaad kala soo degaysaa, sidaas ayaadna ku qaadanaysaa koorso iyo shahaado free ah. marka waxbarashada laga faa'iidaysto meel walba joogtaan.